kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibada qiimaha badan ee ku xiran jira xogo soo dhacaya ayaa waxay sheegayaan in Cabdisalaam Cabdiraxmaan Warsame oo ahaa ninkii laga reebay xukunka dilka ah ee lagu fuliyay labadii nin ee loo soo xukumay kiiskii Caaisha Ilyas Aadan ayaa la go'aamiyay la sii daayay kadib markii lagu waayay cadeymo sax ah waxaana kiiskiisa ku heshiiyay labada beelood ee ku abtirsada Majeerteen waana beesha Cumar Maxamuud iyo beesha Wabeeneeye labada dhinac ayaa ku heshiiyay in mag la siiyo qoyska dhalay gabadha yareed ee Caaisha Ilyas Aadan isla markaana xoriyadiisa dib loogu soo celiyo Cabdisalaam Cabdiraxmaan Warsame oo hore dil toogasho loogu xukumay kuna xukumeen maxkamadda darajada koowaad ee Puntland magta lagu heshiiyay oo ah 75 halaad oo geel ah oo hashayba waxay u dhigantaa qiimaha $500 Mareykanka ah waxaana isla goobta lagu bixiyay lacag dhan $25,000 taasoo u dhiganta 50 halaad labada qoys ayaa sidoo kale isla gartay in muddo 3 bilood gudahooda lagu bixiyo inta dhiman ee magta ah taasoo ah 25 halaad taasoo lacag ahaan ku qiimeysan $12,500 oo dollarka Mareykanka ah dhinacyada wada socda ayaa heshiiska ay wada gaareen oo qoraal ah ayaa waxay la wadaageen laamaha ammaanka iyo garsoorka amniga ee dowlad goboleedka Puntland waxaana sida lagu amray in la sii daayo xukuumada Cabdisalaam Cabdiraxmaan Warsame haddaba daawadayaal wararkaasi waxay naga soo gaarayaan magaalada Garowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland haddaba sidaad u aragtaan in la sii daayo Cabdisalaam Cabdiraxmaan Warsame oo ahaa mid kamid ah raggii lagu sii eedeeyay inuu ka dambeeyay dilkii iyo wiilna kufsigii loo geystay gabadhii Caaisha Ilyas Aadan haddaba daawadayaal fadlan commentiga nagu reeb sidaad u aragtaa kiiskan iyo ninka la sii daayay haddaad channelkan ku cusub tahayna subscribe noo saar oo ka mid noqo asxaabta sida joogtada wala barnaamijyada iyo wala wararkan halkan soo gelino sidoo kale muuqaalka like saar siina share gelo la wadaag asxaabta waana ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka